maanta halkan waxaa ka furmay sir wada tashi ah soo wada qabanqaabisay wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada iyo wasaaradda maaliyadda shirkaas oo ay kasoo qayb galeen dhammaan shirkadaha isgaarsiinta dalka kaas oo lagu lafagurayo lagu hadlayay hirgelinta iyo dardargelinta sharciga dhowaan madaxweynaha ku saxay 2 Oktoobar dalka oo ah sharciga isgaarsiinta qaranka sharcigaas oo ah sharciga ugu horeeyay dalkan uu yeesho mar haddii meelmarintiisii ansixintiisii ay dhamaatay maanta waxaynu guda galnay in sharcigan la hirgeliyo cashuurtii dhamaatay la dhiibo mar haddii cashuurtii la bilaabayo iyo qaabkii loo bilaabi lahayna inaynu ka wada tashano sababtoo sharcigan wuxuu ku waajibiyey shirkadaha waajibaad isla markaasna wuxuu siinayaa xuquuq oo ah sharcigan waa sharciga ilaalinay danahooda difaacay horumarintooda iyo in sectorkan ama dhammaan kaabadaha isgaarsiinta dalka la hormariyo sidoo kale wuxuu ku waajibiyey shirkadaha in xuquuqaha lagu leeyahay ama waajibaadka lagu leeyahay ee ah cashuuraadka inay bixiyaan iyo khidmadaha kale ee lagu leeyahay oo sida cashuuraha shatiyada iyo wixii lamid ah kuwa waa gaari doonaa laakiin sharciga waxay rabnaa tartiib inuu ka baxo tartiib loo hirgeliyo si wada tashi ah in maartay hawshaas lagu qabto marka kulankan waa kulan wada tashi ah shirkadihii loogu yeeray aynu rabno dhammaanteen inaan ka wada qayb galno sidii sharciga loo hirgelin lahaa uu dhaqan gelin lahaa isla markaasna shirkadaha u dhiib lahayn cashuuraadkii ku waajibay marka qaabkii iyo farsamadii aynu ka hadlayno marka waxaa laga yaabaa in la isweydiiyo maxaa labada wasaaradood iyo shirkadaha ka wada dhexay waxaan rabnaa inaan u qeexno ummadda Soomaaliyeed in cidda kaliya ee xaq u leh inay maartay lacag qabato inay tahay wasaaradda maaliyadda cashuurta waxaa iskale oo ummadda wakiil ugu ah in qasnada dhexe ee dowladda lagu shubo wasaaradda maaliyadda ay wakiil ka tahay laakiin annaga waxaynu nahay in farsamadii iyo aqoontii isgaarsiinta inaan ku caawino shirkadaha iyo wasaaradda maaliyadda si markaas khidmada saxda cashuurta saxda iyo qaabka saxda iyo tirada saxda ee laga qaadi karo inaan isula jaangoyno marka waxaynu dhihi karnaa waa gaabadii ama buundadii ama bridgekii u dhexeeyey shirkadaha isgaarsiinta iyo wasaaradda maaliyadda marka waxaynu rabnaa inaynu isla meel dhigno shirkan maanta markuu dhammaado waxa isla ogolnahay sharcigan ku salaysan oo ah cashuuraadkii laga doonayay shirkadaha isgaarsiinta ha noqoto kuwa waxa la gado ama telefoonada minijada ay gadaan ama ha noqdo dadka shaqaalaha ama ha noqdo faa'iidooyinka ay soo galaan marka taas ayaan ku la fuguri doonaa waxaan rabnaa aqritaankina inaan isla meel dhigno waxa ku habboon sectorkan laga qaadi karo waafaqsan sharciga runtii sharcigan waxaa la saxay 2 Oktoobar 2 Oktoobar kadib waxa wasaaradda u hirgelay in caalamka horta ogeysiina inaan ku soo biirnay caalamka isgaarsiinta ama ururka loo yaqaan ITU oo caalamka dhexeeya 193 dal ay ka mid tahay oo ururka qaramada midoobay u qaabilsan isgaarsiinta aynu u sheegnay sharciga inaynu meel marinay adduunyada ku soo biirnay waxaanu ahayn dalka kaliya aan sharci isgaarsiin lahayn qaranka lagu lahaa aan bixinay cod buuxa aynu yeelanay aynu ku soo noqonay bahda isgaarsiinta caalamka taas oo aynu ka qayb galnay shirweynihii dalka Argentina lagu qabtay Buenos Aires bishii hadda la soo dhaafay runtina aad loogu soo dhaweeyay Soomaaliya inay ku soo noqoto bahda isgaarsiinta caalamka xuquuq buuxda ay yeelato cod buuxda ay yeelato waxa kale oo qabsoomay inay bilowdo dhismihii hay'adda isgaarsiinta qaranka oo ah hay'adda laga rabo inay hirgeliso sharcigan taas oo hadda inuu ka bilaabo qoraaladii oo ahayd waa maxay waxa looga baahan yahay qofka ka mid noqonaya hay'addan iyo structure-keedii ama qaab dhismeedkeedii inuu hadda gabagaba noo marayo dhawaana inuu rabno maartay inuu u guda galno in maartay dadkii board ka mid noqon lahaa iyo waaxyihii kaleba inaan u guda galno marka runtii wax badan ayaa ka qabsoomay waxaana kaloo kusoo gabagabay lahaa su-aashaada jawaabteeda shirka maanta inuu u fadhino wuxuu ka mid yahay wixii ka soo baxay 2 Oktoobar markuu madaxweynaha saxay
waxa ugu horreyn waxay tahay in cashuuraadka la qaado sababtoo waxaa jiray sharci hore cashuuraadka sharciga cashuuraadka marka kan marka lagu kabo labadii sharci way iskaabayeen oo waxay noqonayaan marka in si buuxda sharciga loo hirgelin karo gaar ahaan qaybta maartay cashuuraadka marka waxaa noo dhiman oo mustaqbalka marka hay-adda aynu dhisno aynu gaari doonaan qaybihii kale oo khadamaadkii looga baahnaa in sectorkan ama qaybaha isgaarsiinta inay bixiyaan taasna waqtigeeda ayaan ku gaari doonaa hadduu ilaa yiraahdo su-aal meesha ku jiro waana qodob xeerka ka mid ah furaha 252 iyo astaanta qaran internetka loo yaqaano .so iyo lambarada waxaa dhammaantood waa hanti ummadda ay leedahay waa hanti dowladda ay leedahay waxaan laga rabaa inay maamusho shirkadda hay-adda isgaarsiinta qaranka ee dhawaan la dhisi doono marka arrimahaas oo dhan waxaynu sugayaan kow horta waa in hay-adda la dhiso hay-addaas ayaa iskale dhaqangelinta laakiin 252 wuxuu kusoo noqon doonaa gacanta ummadda qaabkii loo maamuli lahaa ma mid wadaag oo shirkadaha iyo dowladda si wadaag u maamulayeen ma dowladda keliya maamuli doonto yaa maamuli doono waxay u taallaa marka hay-adda isgaarsiinta qaranka aynu dhisno hay-adda iyo cidda ay khusaysa ayaan ka wada hadli doona laakiin waa qodob ka mid ah sharciga waa in la fuliyaa waqtigiisa ayaynu fuli doonaa hadduu ilaa yiraahdo waxaan rabnaa hay-addii fulileed ina maartay inuu marka hore la aasaaso oo la dhammaystiro sharcigan wuxuu qabaa 90 casho gudahood in maartay sharcigaas hay-addaas lagu dhiso kadibna marka lagu guda galno marka arrimahaas oo dhan insha allah hadduu ilaa yiraahdo waa u soconnaa laakiin tan cashuuraadka ma aha mid sugi karto in hay-adda la dhiso sababta baahi badan ayuu dalka u qabaa waxay ka mid tahay shuruudaha caalamka uu nagu xiray in deymihii soomaaliya lagu lahaa oo 5 bilyan iyo wax la jira gaarayo si looga cafiyo ama looga khafiifiyo waxaa ka mid ah in sectorka isgaarsiinta iyo qaybaha kale muhiimka in cashuurtoodii la bilaabo la qaado marka ma sugi karin in hay-adda la dhiso sababta aan kusoo horumarin hirgelinta qaybtan ayaa taas ka mid ah in cashuurta la dhiibo caalamka cashuuraha dhiiba aynu ka mid noqono si ummadda soomaaliyeed deymaha looga cafiyo ama loogu khafiifiyo aynu noqono dal sharci ku dhisan cashuurta qaada isla markaasna cashuurtana lagula xisaabtamo dowladda cashuurta la qaado waa in ummadda wax loogu qabto waa in isla xisaabtan dhaba u yimaado markii ummadda shacabka uu dhiibo ama shirkadaha cashuurta ay dhiibaan dowladda soomaaliyeed waxaa loogu fadhiyaa in ammaanadaas loo xifdiyo meel munaasab ah lagu bixiyo